zayd ibnu sucna ninkii la odhan jiray caalim buu ahaa xabr caalim yahuudeed buu ahaa nebigaa dayn ka qaatay calayhi salaatu wasalaam xilligii daynka lagu ballamay in la celiyo iyadoo aanan la gaadhin ayuu ninkaasi nebiga fursad buu la eegtay fursad caynkeeya saxaabada nebigu isagoo hareeraha ka socdaan oo suuqa magaalada madiine ay dhex marayaan ayuu nebiga xagga dambe intuu kaga yimid dee buu nebiga go'isii hunguriga kaga qabtay ilaa nebigoo indhuhu casaadaan cumar binu khadaab baa seefta galka ka saaray markaa buu ninka yahuudiga hadlo wuxuu yidhi yaa muxamed haddaad tihiin buuhi nimankiinan carbeed ee qureysheed in badan baan nila noolaynoo nila mucaamaloonayno xaqa bini aadanka aad ka qaadataan ma soo celisaane aniga xaqaygiisii buu ka yidhi markaa buu nebigu sidaa u dhoolla caddeeyey cumar binu khadaab baa seeftii la soo baxay oo yidhi yaa rasuul allah kaafirkan yahuudiga qoortaa ka gooyey igu fasax markaa buu nebigu yihi cumar may seeftaada galka ku cesha buu yidhi soo dhowow cumarow sidaa si ka duwan ayaan aniga isaguba kaaga baahnayn buu yidhi inaad isagana ku tidhaahdid muddadii daynka in laguu celiyo laysku ogaa maalmo ayaa ka dhimana dee ha gaadho anigana aad igu tidhaahda nebi allow dee daynka dadku kugu leeyihiin dee waxooga iska sii laakiin cumarow sidaa kaamaan helina midibaad seef baad la soo baxdo waad ka nixisee 80 saacoo timirana waa intuu igu leeyahay sii 20na ugu dar buu yidhi waa intaad ka nixisee bal fiirso gaalada ayaa imika dadkan zamankan dambe ka dhaadhicisay in badan diinta islaamku adduunka seef bay ku gaadhay dagaal may akhlaaq bay ku fiday diinta islaamka boqolkii 90 diinta islaamku waxay ku fiday khuluqun xasan dabeecad wanaagsan dulqaad badan naxariis badan sabir badan duco badan dadaal badan oohin badan asbaabtaa buu nebigu risaaladiisa ummadda ku gaadhsiinayey cumar binu khadaab ninkii buu kaceeyey baytalmaalkii buu keenay intiisii markuu siiyey buu 20 kalena ugu daray waa kana qaado u dhaxay ninka yahuudigii war intan anu malihii buu ka yidhi intan aniga nebiga amar igu siiyey inaan kuugu daro waa biiro oo maxaa lagugu biiriyey sababtaan kuugu biirinina waxa weeyaan waa seeftii een kuula soo baxeen kaa nixiyey buu nebigu igu yidhi ugu abaalgudintaas ugu abaalceli markaasuu ninka yahuudigii alaabtii oo dhan intuu dhulka dhigay buu yidhi cumarow zayd binu sucna ninka la yidhaha ma maqashay markaasuu yidhi ma ninka caalimka yahuudeed haa ma ninkaabaa tahay haa ninkaa baan ahay oo adoo nin caalim ah oo diintii hore towraadna wax ka yaqaana oo towraadna weliba lagu sheegay nebiga sifaadkiisa iyo inuu imanayo maxaa kugu kalifay nebi maxamed jidka dhexdeeda weliba iyadoo aanan la gaadhin muddadii daynka in la kala qaato lagu ballamay ilaa daynku wakhti buu leeyahay shuruud buu daynku leeyahay oo lagu kala qaataa aayadda qur-aanka ugu dheerna daynka ka warramaysaa iyadoon xilligii la gaadhin maxaad nebiga sidaa ugu dhibaysay buu ku yidhi sifaadkii nebiyada lagu sheegay oo dhan muxamed waan ku arkay buu yidhi ilaa 2 mooyaane labadaa sifana nebi maxamed kama soo daahiri karayso ilaa la taabtaabta mooyaane sifada koobaad waxa weeyaan jaahiliintu markay xaqiisa ay ku xadgudbaan nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam jahliga loo geysanayo ee jahaladu ay xaqiisa ku xadgudbayaan dulqaad unbaa nebiga uga ziyaadee maba cadhooda buu yidhi waa sifaadka nebiyadu ay leeyihiin cadhada nebiyada iyo dulqaadkoogana marka laysku qiyaaso waxaa qaaliba oo sarreeya dulqaadkoogaa sarreeya dulqaadkooga shahaadateynka iga maqal buu yidhi hortaadaan ku laqinaya ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxamadan cabduhu warasuuluh isagoo islaamay oo cumar uu gacanta hayuu nebiga u keenay nebiga hortiisana uu ku ashaatay faatimata bintu khataab maka markii la jooga cumar seefta intuu soo qaatay buu yidhi maanta aniga maxamed weeyaan ama maxamed baa magaalada maka joogi ama aniga unbaa joogi isagoo dariiqa ku sii socda nebiga calayhi salatu wasalaam meeshii uu joogay sacd ibn abi waqaas baa ka hor yimid uu ku yidhi yaa cumar xaggeed u socotaa wuxuu yidhi maxamed baan u socdaa buu yidhi ima aniga ima isaga buu yidhi maanta maxaad ka rabtaa maxamed dee diin buu noola yimid aanu garanayn buu yidhi
ilaahyadeedii buu naga ceebeeyey aabbayaasheedii dhintan ahla naar buu ku sheegay cuqaladeediina sufahaa buu ka soo qaaday labadii wada dhalatay uu madaxa isku geliyey maxamed balaayuu nala dhex yimid maanta ama isaga ima aniga ama waa aniga ama waa isaga adduunka ka baxaya wuxuu yihi maxamed waxaad ka doonayso waa gardarre buu yihi maxamed tol iyo reer buu ka dhashee waxaad maxamed ka doonaysid aqalka walaasha inuu yaalla ma og tahay buu ku yidhi diinta maxamed uu la yimiday sawta aqalka walaasha dhex taallama buu ku yidhi sacd ibn abi waqaas markaa uu islaamay islaamnimada isagu uu qarsanaya uu cabsanaya nebigana cumar ka jeedi buu isleeyahayo bal akhafu dararayn cumar ha ku noqdo seedigii uu ka xesho saciide iyo walaashiina uu u naxariisanaye xaggan u jeedi buu leeyahy balaayadan socota oo nebiga ka jeedi deedna markaasuu uu soo kala wareegay aqalkiibuu soo galay markaa walaashii dibadda intuu soo socday buu maqlay markaa qur-aankii oo la akhrinayo khabaab saxaabi la ohan jiray radia allahu canhu ayaa markaa u yimiday oo qur-aanka ayuu barayay zawjka faatima zawjkeeda iyo iyadaba khabaab baa markaa qur-aanka barayay oo suuratu taaha awaailkeega intay soo degtay oo lagu soo qoray harig ayuu maaragtaan ku dul akrinayay u macnaynayey mar alli markay faaduma maqashay walaalkeed cumar oo soo socda ayay aada u naxday cumarna nin adag buu ahaa nin adag oo aad iyo aad u adag oo aan waxba la marin karin buu ahaa deedna markaabay qarisay isagiiyo meel bay ku qarisay iyadiiyo ninkeygiina way soo dhaweeyeen oo way fadhiisiiyeen cumar baa ku yihi hunuhunaadaan nigu maqlaya waa maxay buu yihi waxba ma jiraan bay ku tiri maxaa jira isqabooji waxbaan maqlee sheegay bui aqalka waxbaa soo gale oo maxaa soo geli lahaa aqalka diinu maxamed baa aqalkaad ku haysaan ood qarinaysaan faadumay sheeg oo warqadaad waxaad akhriyaysana ii dhiib markaasuu doonay inuu ka qaado maaragtaan warqadii harigii uu ku qornaa maaragtaan qur-aanku way ka buuday marka way kala buuday iyaduna deedna markaa seedigiibuu dharbaaxa ku dhiftay walaashiibuu dharbaaxa intuu ku dhiftay dhulka ula dhacday markaabay ku tiri war waxaad doonta samee bay ku tiri aniga zawjkeyguba waan islaamnay ku tiri qur-aankan ilaahayna kuu dhiibi mayna bay tiri waayo nin najaasaa tahay najaas imaa soo meydho imaa soo weysayso labadaa midun baan qur-aanka ilaahay kugu dhiibaynaaye waxalle waxaad samayn karta samee diinta islaamka ee maxamed uu noola yimidayna waa xaq tu aan ka noqonayna maaha bay ku tiri cumar waagaa ku baryay markaas seedigii dhulkuu la dhacay walaashii dhulkuu ku dhiftay isagiina madaxa iyuu qabsaday markaasuu ilay diinta tacab baa u galeen dadkani moogtahay walaashii u dharbaaxay seedigii laabtuu kaga fadhiistay ilaahay caza wajalla markaa qalbigii cumar baa ilaahay jilciyey wuxuu ii dhiib han akhriya soo weyse qaado uu soo weyse qaatay markaasay u dhiibtay cumar nin reer magaalo wax akhriya buu ahaa marka horeba deedna markuu akhriya taah maa anzalnaa calayka alqur'aana litashqa ila tadkiratan liman yakhsha tanziila miman khalaqa alarda wasamaawaati alculaa alraxmaanu cala alcarshi istawaa lahu ma fi الsamaawaati wma fi اlardi wma baynahuma wma taxta athara ilaa aakhir alaayaat markuu cumar akhriyey ayuu yihi ayna muxamed muxamed ii geeyey buu yihi calayhi الsalaatu wasalaam qur-aankii ilaahay markuu akhriyeyba qalbigiisii baa jilcay aawey muxamed halkuu joogaa ii geeya khabaab oo markaa la qarinayey oo macallinkii markaa faatimo iyo zawjkeeda qur-aanka barayay ahaa ayaa sariirta kasoo hoos baxoo yihi abshir buu yihi yaa cumar xalay toole nebi maxamed calayhi الsalaatu wasalaam anaa labadeedaa dhagood ku maqlaya isagoo ducaynaya oo laba cumar midkood ilaahu diintan ku cizee buu nebigu lahaa cumar binu khataab iyo camar binu hishaam camar binu hishaam waa abi jahl weeyaan cumar binu khataabna waa cumar alfaaruuq weeyaan ilaahu labadaa cumar waa laba nin oo quraysh ugu geesinimo badnayd bay ahaayeen laana diintan shaksi geesiya shaksi sakhiya oo haniya ayaa diintan wax u qaban kara walaalayaal ilaahu labadaa cumar midkood diinta ku cizee buu nebigu yidhi ducadii adeeg ugu dhacday bishaar isaguu ka yidhi gacanta intuu soo qabtay buu u keenay nebiga sal allahu alay wasalam u farxay rasuulkeenu cumar walaashii waxbuu yeelay laakiin qalbigiisii baa ilaahay furay qalbigii baa ilaahay u furay naxariistii markaasaa xamza nebiga u galo yidhi cumar baa soo socdo seefna wata markaa buu nebigu ii soo geliye aniga ininkuna banaanka ku hadha markaasaa loo geliyey nebiga sal allahu alay wasalam uu ku booday nebigu halkaasuu cumar qabtay markaa buu ku yidhi aslim yaa cumar aslim ya bna khataab allaahuma hdihi waxaa la yidhi dacwad iyo ducuu nebigu iskugu daray warina khataabo islaam buu nebigu yidhi waxa uuna yidhi ilaahu cumar bnu khataab qalbigiisa adahya soo jeedi markaa buu yihi ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anaka rasuulu llah isla markiiba cumar wuxuu yidhi muslimiinta markay maqleen cumar waa shahaadanaya takbiir bay ku dhifteen markaa buu yihi yaa rasuul allah
xaq ma ku taagannahay mise kuma taagnin waan ku taagannahay ayakuna baatil ma ku taagan yihiin quraysh mise kuma taagna way ku taagan yihiin xaqa la qarin maayo maanta wixii ka dambeeya bannaanka usoo saar buu ka yidhi cizigii islaamkaa bilaabmay yaana u sababa haweeney faatimata bintu khataab radia allahu canha maalintuu cumar islaamay islaamkii cizi baa u korodhay maalintuu cumar khilaafada islaamka uu qabtayna diintii islaamka adduunka ku fido cadaaladii ba adduunka o dhan gaadhay markaa buu nebigu calayhi salaatu wasalaam majliskiisii isagoo maalin fadhiya ayay nimankii muhaajiriintii maka ka soo hijrooday ayaa sare kacoo nebiga ay ku yidhaahdeen nebi allow magaalada maka annaku aan ka imanay ka soo baxnay maa u zamzam baan ku haysanno iib ma ahayn halkan biyuhu waa iib magaalada madiina ceelashana niman yahuuda inta badan iska haysta lacagaan ku iibsanana ma haysano marka ninkii ceelka bi'ru ruuma lahaa ayuu nebigu u tago wuxuu ku yidhi asxaabatayda muhaajiriintayda biyaha u fasaxa ka cabbaane markaasuu u fasixi maayo oo anu ceelkaa yar baan leehayo biyaha yar baan iibiyayo reerkayga ayaan ku biiliyaa markaa buu nebigu ku yidhi bicniihi bicaynin fi ljanna il jannada ku taalla ceelkaagaa ku bedilo ku iibso markaasuu yidhi may ceelkaygaa yar iska iibin maayo iska kaydaa buu ka yidhi cuhmaan binu cafaan radia allahu canhu oo daki ahaa oo caqli badnaa oo inshiisu meel dheer wax ka arkaayey oo basiiro ilaahay uu siiyey ayaa hadalkii nebiga qalbigiisa ku dhibcay bicniihi bicayni iljanna il jannada ku taalla ceelka igaga iibso markaa buu ninkii iska diiday ninkii ceelka lahaa cuhmaan baa ninkii u tagoo yidhi ceelkaaga haddii lagaa yidhahda lacag ku iibi ma iibin lahayd haa waan iibin lahaa way gorgortameen markaa waxay ku heshiyeen 30,000 oo dirham cuhmaan lacagtiibuu soo qaado uu dhigay ceelka furihiisa igu soo wareeji buu ka yidhi uu ka soo qaatay rasuulkii calayhi salaatu wasalaam buu u keeno wuxuu ku yidhi yaa rasuul allah ceelkii bi'ru rooma haddii aan keeno ishii jannada ku taallee ninkaa loo ballan qaado iska diiday aniga ma lai ballan qaadayaa markaa buu nebigu yidhi haa markaa buu yidhi ceelka furihiisii waa kan asxaabtaadana waa waqaf buu u yahay ha dhaansadaan buu yidhi ceelka haddeeto biyihiisa waa waqaf hal isticmaala buu rasuul allah yidhi markaa buu nebigu farxay indhaha ayuu nebigu markaa kor u qaado wuxuu yidhi cusmaan ilaahow raalli baan ka noqdee raalli ka noqo cusmaan maanta laga bilaabaa camal dambe hadduunan samaynba intaabuu jannada ku galay buu rasuulku yidhi waqaala arasuulu yaa rabbi ina qowmi ittakhaduu hada alqur'aana mahjuura waqaala arasuulu yaa rabbi waa goormuu nebigu hadalkaa yidhi calayhi salaatu wasalaam cuqbata ibnu abi mucayd ninkii la odhan jiray mushrikii quraysheed ayaa cazumad buu sameeyey waliimad waa markii maka la joogay diinta islaamku qariib ka ahayd marka cazumad markii carabtu ay fidinaysana shaksiga ugu qiimo badan magaalada make ugu sharaf badan wuxuu ahaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam marka cazumaddu nebi maxamed uu ka maqan yahay waa naaqis weeyaan cazumadaasi lidaalika diyaafadii markuu u yeeray dacwadii dadka dacwadii buu nebiga gaadhsiiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo ballanka ilaalinaya waxa uu noqday qofkii ugu soo horreeyey u soo gala si uu ballanka ninkaa ugu buuxiyo waana mushrik ninkaasi la soco sida nebigu akhlaaqda u hagaajinaya eega waayo nebigu dacwadii risaalad buu ummadda u gudbinayaa risaaladan akhlaaqda wanaagsan baa lagu gudbiyaa cibaadadan ikhlaaska wanaagsan baa lagu gudbiyaa oo cibaadada ilaahay inuu kaa aqbalo waxa u shardiga waa ikhlaas lanna cibaadada ilaahay baad uga jeedaa inuu kaaga raalli noqdo amaa risaalad markaad gudbinayso ee dacwadda ummadda aad u gudbinayso shardi waxaa waa maaragtaan xusnu lkhuluq inuu qofku dabeecadda wanaagsan inuu dabeecad wanaagsan yeesho lidaalika nebigu sal alla alay slam uu ugu soo horreeyey mujrimiintii qureysheed markay yimaadeen abujahl baa arkay markaasuu yidhi warma meesha maxamed uu joogo ayaad annaka noogu yeedhay buu ka yidhi meel baad nagaga dhacday buui meel baad nagaga dhacdee annaku waan kaa dareernay waayo ninkaa dagaal baa naga dhexeeya bay idhaahdeen safaha axlaamana wa caaba aalihatana wamaata aalihadayadii buu naga ceebayuu naga dhaleeceeyey odayadeedii caqliga badnaana man wuxuu ku sheegay dadaan maskax iyo maan aan lahayn buu ku sheegay aabbayaasheedii dhintayna aalanaar buu ku sheegay ma ninkaasi maaragtaanay diinta noola yimiday annaka maaragtaanay dhulka nagu dhifatay miyaad ugu yeedhay casuumadda ma meeluu maxamed joogaad annakana noogu yeedhay waa kaa dareeraynaa markaasuu yidhi hayga dareerine maxaan yeelaa badin sheega waxay yidhahdeen annakoo u jeednoo arkayna maxamed hor joogso wejiga qandhuf kaga tufay ku yidhahdeen
waxa nabiga sida loogu ihaanaysanayo waa diin ogow wa aniga ya adiga sida risaaladu inoo soo gaari lahayd ayaa nabigeena sida loogu galaya calayhi salaatu wasalaam sidii buu sameeyey gaalkii xunaa markaas anu kuma yeedhin adaa iska yimiday fatafala fii wajhi nabiy sal allahu alay wasalam markaabuu nabigu isagoo murugoonaya oo qandhuuftii wejigiisa ka bi'inaya ayuu nabigu aqalkii ka soo baxay inta uu gurigiisa gaadhin ayaa qur-aanku ku soo degaya ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد ضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا ما لم بأي من دون النبي يقول واذكر حس ما لم بأي من دون الظالم كاس يا ظالمين تلمنا farta intay dhexda ka qaninaan bay ku calaacali doonaan maan muxamed calayhi الsalaatu wasalaam dhaqankiisa maan raaca hadyigiisa maan raaca shareecadiisa maan raaca way abijahal baa ilumiyey warkiisa maxaan u qaadanayey maalin bay ku calaacali doonaan baa nebiga lagu yidhi wakadalika jacalna likuli nabiyin caduwa min almujrimiina wakafaa birabbika haadiya wanasiira qur'aanka marka nebiga qalbigiisana waa la dejinayaa oo la leeyahay arrinkan adiga kugu dhacay kuguma eko adiga keligaa kuguma eko dadkii hore ee risaalada u soo dhiibnayba sidaasun bay mujrimiintu u jeesjeesi jireen oo loo dhibi jiray laakiin adiga rabbigaabaa kula jira nebiga lagu yidhi gargaaraad haysataa haadi baad haysataa dariiqa xaqa kugu ridaye ha ka walwalin baa nebiga lagu yidhi maalin keliya adiga dhib kuu geystaan laakiin dhibaatada iyo ka sugaysaa ka weyn baa ilaahay ku yidhi qaaradda amriika annakoo beri jamaacada ayaa qiso cajiiba la iga sheegay gobolkan la yidhahda massachusetts boston magaalada boston ru'asaa'u lkanaa'is kaniisadaha ku yaalla statekaas ayaa shir bay ku galeen magaalada boston waxay ka shirayeen dadkan qaxootiga ee ka keennay soomaaliya miyaa ku najaxnay oo muraadkan ka lahayn ma ka gaadhnay mise waa ku khasaarnay markaasay hadleen waxay dhahdeen waa ku khasaarnay ile dadkan qaxootiga dhaqaalaha lagu qaadaya yaa bixiya kaniisadaha soo bixiya markay dalkaa galana kaniisadaha istiqbaalo ogow waan ku khasaarnay buu yidhi mid wuxuu yidhi waxaan ugu khasaarnay madaaristii qur-aankay fureen masaajiddii bay dhiseen xijaabkii iyo shacaa'ir alislaam bay muujiyeen kaniisadihii bay naga iibsadeen ee masaajid u bedileen aadaankiibaa gobol walba ka baxaya shacaa'ir alislaam dhallinyaradoodu garhkii iyo khamiiskii bay muujiyeen waa ku khasaarnay ku kalaa hadloo yidhi may kuma khasaarin brosesku meel fiican buu socdaa buuhi meel fiican si fiican bay ula haystaan buu yidhi waayo kuwa annaku aan keennay iyakoo waaweyn uma soconno kuwa ay gacanta haysteen ay laalaadinayeen ay la yimaadeen dalka ku soo dhashayna uma soconno kuwa ku dhali doonaanna uma soconno jiilka afraad baan u soconnaa buu ku dhalan doona maraykan ee labaad kuwaabaa masaajidda ay kuwani kaniisadaha kuwani masaajidda ay ka dhiseen kuwaabaa ku soo celin doona buu yidhi maxay kaniisado la islama gaadhin ba imika yaa isla gaadhayba 6 sano 10 sano 8 sano iyagoo joogay bedelmeenba dadkii dhulkaa naga tago dhan intii ilaahay u naxariisatayna ee damiirka iyo dareenka lahayd ee duca hore ee u sabaqdayna waa kuwan dhashoodii kala soo yaacaya la iskala imay waxaaba la isla soo galay wadannadii islaamka 2 sano ka hor annagoo xajka joogna ayaa supermarket halka ay Djibouti degan yihiin u dhawaa ayaa xilliga fajarkii aan ka soo baxnay salaadii waxaan iskugu imanay dhalinyar wadanka u dhalatay Makka Mukarrama ku dhalatay Makka ree Makka oo surwaal gaaban qabta ay xiran yihiin surwaal gaaban baabuurkana music ba ka baxayo bug ba oday ba yaabay saas war Xuseen soo kale buu dhahay meeshan aan joogno ma Paris baa buu mise waa Makka Djibouti Paris bay tagaane markaas aan ku yiri waa Makka tal Mukarrama xaafad Zaahir baan joognaa markaas dhashani
مكود دبده كي مدي أو ماشي كسوق قلدمه ما سوى دجان كدول كان مركز كل ويدين بقى إدبان ويدي من أين من مكة مواليد مكة أنت مواليد مكة أيوة بعد مكة كل شيء بيقول هاي بانكيري مركز ماذا حقب سده وذي درين لبو هاي وفكرة موقته والداعية وحول واحد كتر هذا سؤال كان قابني هذا إنك بعد مكة نحن ذا قوة ضتان أنا كدت كيجي يدل كيجو سجاش ميدي بالله سوق قد بيقولي شنية سجاش كي هالك رجبوتي أي مريين كله أياد إنكم ما أنت مرة سر مكة مكة اللي بدلي كويت جي مركب حد كورسان كي الرياض كله شال اللي بدلي كي مدينة كله شيء اللي بدلي بلاد الإسلام قهر الإسلام كي كله شيء أيال اللي بدلي سدل لك بدلي والله فكرة يا والله قصة مقية هي أديك إنك ولا ما أنت وان هردنا ما أنت إلى الهردة كعنا الله بحياه هي مركز ودين تاني لهين نسيي وبتكنا كتر بيدينه رجعنا وين أخيارتنا عن دعوة دي ذلك الدين أن نسكت تاجنو وايو هدان دين تأجر جارنو إلى هاي بالله بنو قاضي وحيري يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم بإلهي كو إلهي نبي الرمية يو هذا دي جرجارتان بإلهي ودين تيدا أجرجارتان أنا قلنا وانيني جرجاريا قمديه إن حقا كسوغا يا بإلهي هذا إلهي دين تيسا أجرجارنو يا نو جرجاريا ورجرجارك إلهي كعجب بحياه ومحي أديك ضعيف حكى دقنت هاي هذا دين تكرو قادام هذا دين تإنكو كنا قنتان هذا ولاله إن مسلمين تقول نستح حيسان هذا أوبتكين دين تبرتان هذا دين قوة دقنتان هذا دين تكتشتان هذا دين تدقاله نكون بحسان هذا مدارستي مساجدي دعوتي خيرك أضف قيسان ودين إلهي كش قيسان إلهي بلا نو نيجر جاريا زلزال كستود عالمك فذنت كستود تمادنا ندقاجين كريم يسير لغيهنا قمدهنا أنا حق كسو يا بإلهي ربعي بن عامر صحابي جليل كاها رستم مركو تجينا وكي كويل رستم الله ابتعثنا إليكم أنك إلهي بنوكي سو صاربو كيد ورقفك مسلم كا ولا ليال مسلم وين فهمت إلهي بكو سو صاري إلهي بكو دورتي ومع إلهي كو دورتي دين تا إسلام كا إناد كو دغنتو أود براتو أود كشقيسو أود دين كو نولاتو أود دين كو نماتو أيا أدوية اللغو كيني هدف كاغونا أون نغضو إناد جنهش أنصار مرقو النبي يقول لم يبايعون يا أنصار وحو النبي يقول أنصار أي كوة باللمين بيعة العقبة مركي دعيسي يا رسول الله أنا كو قادنا النبي كو يرادين مدينة المنورة وان كل تجينا سيدا نفط يدا عدو قانو قد دفاعنو يعني المها يقع عدو قانو قد دفاعنو الريرها يقع عدو قانو قد دفاعنو أيان أديقنا عدو قد دفاعينا وحنا نؤقنهي هدان مقالة مدينة كل تجنو عالم كودا دتا كنول ayaa dagaal lagu soo qaadi doona difaacaga inaan ku dhamaanana diyaar baan u nahay dhaqaalaha yageena inaan adiga kugu bixino diyaar baan u nahay ma laga yaaba nabi allah maalinta ilaahay diintaada uu muujiyo ee guushaadii ay daahirto ma laga yaaba inaad naga soo noqoto oo maka ku soo noqoto markaa buu nabigu waxa ka yaabina buu yiri halkaad ku noolaataana waa ku noolaan buu nabigu yiri halkaad ku dhimataana waa ku dhiman halka dhiigiinu ku daatana waa ku daadan dhigaygu rasuulku yiri yalla fiirso waa bay'a erayadii ansaari nabiga dhaxmaray sirada ku taala الدم الهدم با nabigu halka dhiigiinu ku daato dhigayguna ku daadan halka qabuurihiinu ay noqdaan buu qabrigayga noqon rasuulku yiri inaan makka ku soo noqdaa oo tolkay niga soo raaca hasoo dhiganin nabigu ansaaray waa ballan hadaad aniga maanta ay qaadataan oo sida naftiina iyo ubadkiina iyo dumarkiina cadowga aad uga difaacaysaan hadaad cadowga iiga difaacdaan anna waxaan nii ballan qaadayaa halkaad ku noolaataanna waan ku noolaan halka laynagu aasana waa laygu aasi halka dhiigiinna ku daatana dhiigaygu waa ku daadan waana ballan buu nebigu yidhi wallaahi buu nebigu yidhi waxaan nii sheegayaa dadka adduunyada ku nool hadday dhinacay maraan ansaarna xagga ay marto oo la yidhaahda kala dooro halka ansaari ay martaan mari buu rasuulku yidhi waxay yidhahdeen waa hagaag laakiin maxaad noo ballan qaaday oo kale noo sheeg
وتقولي سنة إلهي بقوش كوسين دونا أنا قلنا دفاع عاقينا كل ما الديار بانونا هي بعد ما بلغ هذا سنوشك وعود الجنة ني بلغ هذه جنة محاكوين بالشيء ما أورن مدح بندقة دقيا دقالان النسينا يا ثلاثة دبضة إنك نيدي بيا ما أورن وحاو نبي يقول وحا سواء الديو ككالي وحاو نبي يقول بلغ هذا إن جنة وده هلي دونا فعلا النبي يقول أنصاره ودعي صلى الله عليه وسلم غرغارك أي نبي يقول غرغارين إلهي رسولك سأوحو أهيليين دينته غرغارين أي الله يقول مقعدر الأنصار كوي إلهي النبي يقول غرغاري والله يقول مقعدر marka inakuna inaan diinteena u gargaarna laynaga rabaa maanta Musa alayhi salaam nabi Musa ayaa arkay dhagax dhulka dul yaala oo biyana ka soo baxayaan markaas ilaahay nabi Musa wuxuu maqashiyay xiin dhagaxa ka baxaya xiin guux marka Musa alayhi salaam baa ya rabbi iidan buu Allah hadlay dhagaxii baa laga hadliyay nabi Musa dhagaxii la hadlo ku yiri xaad la ooyaysa bali sheeg biyahan ka socday maxay yihiin markaas uu ya Musa waxa loo yaa waa ilaahay cabsidiisa naar baan ka baqaya waa dhagax بنص القرآن إلهي بك كل شيء عيدا ني آخرنا وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء دقح دقار بعد دلدلاعيا ومحيلا دلدلاعيا إلهي عبسي سنة دلدلاعيا لأن نبيا كسو بوده مركع ودقح مركز النبي موسى كويري وما هبيا كسو بحيا مركز الوأوهن محلو يسايشك نارت إلهي بك بقى يا بولي وعد أدوك مكلف متي دقح باتهاي جيني إنسبا نارت اللي قرياي أدوك دقح باتي محل أويسا يا موسى ميانا مغل وقودها الناس والحجارة وقودها الناس والحجارة إن نارت جهنم دقح يدل قهرين دون ميانا مغل مركا سود ها دي وحا مركا اللهورين يانا نارتا دقح ذا يريربا لغو قرابر كوا يريربا لغو قردونا صدا حابا مركا اللدون إلا الشدو كوا لغو الرئيسية عوسك يرير مركا أبو الله حضور من أنت أدو آياتها إيشيك موسى كلم الله بانه موسى كلم الله بانه مركا سوري حق إله كلم كادقيت إله كلم هذا القسيكم مقاشيان كوكو داريه إيه شفاعات قادوا إلهي إيه إرقى الضلب إن إلهي نار تانيكو يقبت باديه مركا سو نبي موسى إلهي أبريي إلهي الله سبحانه الله كويري أبشاره نار توكبت بادين السجاء مركا سو وش يقول أبشر هذا إلهي نار توكبت باديه مدكدب هذا النبي موسى عليه السلام دقحيو سيدي ونقوحايا وبيهنا كسعدان بوهالكي كسو مري مركاس الله الله وحو كيري واكي نارتي لقابت باديه كو شفاعات قادة كو ورمي صديق ولي اوهنتي ودما مركاس مالكي هوري اوهنتان اويي نارتا عبسيدان لا اويي هذا وحان لا اويي يا بوري وشكرا إلهي ما هنقصان لا اويي يا ابو كيري فرحد مرمر قف كل ما اويو يا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وكي قارئوا نقول تجيني بعد صلاة المغرب كي لو أنزلنا هل القرآن كان أن بشر كسو دجنبا إلى هاي لي هاي حتى بورها كسو دجن لها القرآن كا وعلى أرك لها بورها أو دلدلاعيا بورها أو دلالايا تدوب الجبال بل هذه القرآن كبورها اللي قد دجن لها بوره بالي هي سيدا نحاستو أي أدلالي صدبك سيدا نحاستو أدلاليو أي بوره أدلالي لهايين لكن قلبي ناعذك ما أنت إنك ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه خادمك النبي نوح عليه الصلاة والسلام أهل الصفيه مقالة المدينة قراني قرابة أن كلها إنك مدى أيوها مساجد كالنبي مؤخرة دي سدا بأيو دقنا أهل الصفوه وحي هايين رق مال مدن أي أفكوغا أين هلي جرعنتا أي قليان أبا هريرة كمدها مركي النبي أكفر ديان بالليلي حتى عورضو دو سيدنا أموقا مرض يري ستاني قنتقا وسط اللقو حدو أي اللبض اللقو دنتين قبطان بسكو حجينيين بالليلي يكو عورضو دو نبي كقرصنايا در لآن عنتا لآن نبي أو يري مالين أهل الصفها لبا تمرو نبي سيسيا لبا تمرا ما أنت هذا مكو قضين لهي
barwaaqaan ku jirnaa inaku barwaaqo nicmad shukriga inagu yar maanta laba timiruu nebigu u dhiibay hela sufiya war Abu Hurayra labadan qabso war Rabiica labadan qabso war fulaan labadan qabso Abu Hurayra Allah raali ka noqday wuxuu yiri xabadna waan cunay markiiba oo waan gaajoonayay xabadna halka guntiga ayaan ku duubto ku laabay markaa buu nabigu igu yiri lima rafa'ta hadihi ya Abu Hurayra xabadan timirta halkan aad gelinaysa maxay tahay cunde markaasuu hooyadii baan u geenayaa buu kay markaa buu nabigu hooyadaana annaka kugu dhiibaynay iska cun buu kay Abu Hurayra waana maanta xadiiskiisa markaad maqashaan aad ku raaxaysanaysaa xadiista aan inta badan aan sheegayno dhan isaga wariyo inta badan laakiin uu sabray uu tabcay diinta tacab buu galiyay diinta uu gaajooday diinta uu huray wuxuu jeclaa inuu magaalada Madiina ka xogsado uu karayay laakiin wuxuu gartay jawaahirta nabi maxamed afkiisa ka soo baxayso ummadda u reebay ilaa qiyaamaha Rabiica marka raggaasuu ka mid ahaa Rabiica ibn Ka'b al-Aslami radiyallahu anhu wuxuu yiri isaga ka sheekaynaya habeenkii markuu nabigu soo kaco calayhi salaatu wassalaam ilaa aqalladu markaa zamankaasi aqallada dhexdooda busqulo lagu xaajoodo iyo tuwaleed ma lahayn banaanka magaalada Madiina loo bixi jiray magaalada Madiinana bahalo iyo baholo badan bay lahayd markaa buu yiri Rabiica nabiga ayaan u soo qaadi jiray buu markaa cadaygiisa iyo biyaha weysadan u sii diyaarin jiray buu habeenkii Madiinatul Munawwara marka dhulku uu yahay xilliyadana qabowgeega waa cadi ma qabowgeega markaasaan u keenay nabiga biyihii weysadii iyo cadaygii dana xaajadiisii uu nabigu soo gutay inta nabiga la socdaa buu dhawaan way ilaalinayaan nabiga moogta sallallahu alayhi wasallam markuu nabigu soo noqday buu arkay Rabiica oo aad u dhaxmoonaya oo gaajoonaya markaa buu nabigu ku yiri Rabiica salni maanta waxa doontay weydiisay buu caawa nabi maxamed ba hadal kaale ku salliya يا ربيعة سلني يا ربيعة وحاد دون تعاوى شيغو يا لهذا الكلام محمد عليه الصلاة والسلام والنبي جه والنبي دعادي مستجابة أي تهي والنبي أود ويا شيء جيد ويا جيد بويا جيد والنبي إلهي أوصي تأييدات هي معجزات ضميرك هذا الجسوم مغلى يا نبي محمد ضميرك والنبي إلهي أود وحوق لي هدور الله بورت إله والكا كقاد إلهي بورها وكقاد إلها مقالة مكبر لي والنبي تبي ربيعه شجعه واحد دونس واسكن نقول إيك هذا النبي الله هل أبو فريستي نكن والنبي محمد كله يهي باهي هذا عاوة إيش جوان مقالة المدينة أقل كمله جاك كمله قرابة كمله قرين كمله ماله وحكعنا ما هيستو هدية النبي الله كان أيو نبي أهل الصفان أو حكسية معلومات دنبا صورة صدح معلومات أفر معلومات وضبا معلومات على شو ده عنتي قليان مهلان حبت تمره هذا هلان بيكون يا أبا الكوكبا نكباهيدا أي هيسو أي نبي محمد فرصة انتوسية وكل هاي يا ربيعة واحد دون تعاوى شيخو سلي إيش شجع واحد دونس مركاسو ويمدو حيري أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله وحكل أون شيغانا يا مجرتي إن الجنة كلنا نقدر رفيق إلهي أنت إيوي دي بكي مالين دحدايا مقطع وحن آخر السنة يي ناق إسلام دوغا أو ودنك فرنسيسكا أو دلاتي أو فيلسوفا دا لغا قري waxay tiri waa da'deedu waa dhowr iyo 9 jir waxay tiri lacag sidaan lacag u sameyn lahayn baan dadaalkayagii oo dhan ku bixinay tiri lacagtii waan helay tiri aqalladii adduunyada ugu quruxda badnaaya ugu qiimo badnaana waan dhisanay laakiin usrad kuma dhaxayna bay tiri usrad oo macnaha reer is haysta aabba iyo hooyo iyo ubad isku xidhan oo is haysta aqalladii aan dhisanay adduunyada ugu qiimaha badnaa kuma haysanay tiri waayo dadka cadaanku inagu maanta aan hiigsanayna elena kuwaas horumar gaaray ilmahoogu hadduu gaadho 18 jir hooyadiina ma yaqaano aabihiina ma yaqaano gobolka Detroit ee Michigan bari anagoo joogna ayaa nin Soomaaliya oo aad u daaweyn oo dadkii waliba 77kii Soomaaliya ka baxay ahaa
ayaa la noogu geeyey guri markaa isagoo jiifo xanuunsan annakoo jamaaca marka dhowr jinsiyadood baan iskugu jirnaa markaa Soomaali carab suuriyiina nala socday Bakistaani baa nala socday Afro American baa nala socday waan isla soconay waa ku weecanay markaasaan u ducaynay wuxuu yidhi kaalaya buu yidhi aqalkan dariskayga waxaa ku nool buri oday duqa oo gaboobay iyo islaan duqa oo gabowday waa laba caddaan oo Maraykana waa labaduba way xanuunsan yihiin waa sankaraad kaalaya iyakana bal u tago salaama buu yidhi wax dada anigaa u gala buu yidhi markaasaan u gallay mar alle markay arkeen annakoo las u soo galay aqalkii odaygiina halkaasuu jiifaa iyadiina halkaa bay jiiftaa labadoodii baa la soo kiciyey way sag fadhiisteen markaasay farxeen way farxeen markaasay kala bateen odaygii yuusuf bay ku yidhahdeen yuusuf intan oo dhan ma wada qoyskaagiibaa bay ku yidhahdeen ila Maraykan dalkaasi habartu waxaa laga yaabaa mar nin caddaana inay la noolaato laba cadcad ay u dhasho mar mid madow waa u imanaya laba mid madow bay u dhali mar mid Chinese u imanaya mid Chinese u dhali marka iyagu xagga hooyo walaalka yihiin xagga aabbo walaalkama ah marka wuxuu u qaatay intayadan inay islaan kaliya wada dhashay maca Yuusufka markaasuu yidhi may islaamnimo un bay igu soo ziyaarteen buu yidhi islaamnimo likowni annii muslim ogaashahay ogaadeen inaan ahay muslim ayay aniga isoo booqdeen buu yidhi wax nasab oo ka dhaxeeya haba yaraatee ma jirtee waxa naga dhaxaysa laa ilaaha ila allah muxammadun rasuulullah markaasay islaantii duqdii iska oyday iska barooratay markaasaan ku nidhi maxaad la ooyeysaa bal noo sheeg waxay tidhi master yuusuf adigana diin ahaanba dadkaagu kugu soo ziyaaranayaan oo waxaad leedaha dadka kale jinsiyada hooyihii aabba nima wada dhaline laa ilaaha ila allah muxammadun rasuulullah baan walaalo ku nahay annakana labadii u wadeen dhal la yidhahdeen wiil iyo gabadh baa ilaahayna siiye yidhahdeen maalintii 18 jir gaadheen baa wiilkiina noogu dambaysay inankiina maalintiiba noogu dambaysay yidhahdeen labadooda marka aqalka waxay ku haystaan odayguna ay yar buu qolkaa ku haystaa iyadna ay bay qolkaa ku haysataa hadday dhintaanna cid dhaxlaysa ma jirtee dowladda hoose ayaa dhaqaalahooga iyo guryahoogaba ku iibsa $10 marka u dambaysa fa waxaan ka wadaa marka haweeneydaasi waxay tidhi lacag waan samaynay sidaan u samayn karaynaba aqaladii adduunyada ugu qurux badnaana waan dhisanay tidhi laakiin aqaladii usrad kuma haysano nolol usradeed oo ishaysata kuma haysanay tidhi waxay tidhi haddana ashyaadii adduunyada ugu qiimo badnayd waan iibsanay oo aqalada waan dhiganay haddana sacaadadii qalbiga ma haysanay tiro raaxo ma dareemayno daawadii adduunyada ugu qiimo badnaydna dhakhtaradeedii noo yaallin guryaha dhexdooda haddana caafimaad ma hayna bay tidhi jaxiim naartii jaxiiman la odhanayey ayaan adduunka dusheeda annaku lacagteeda ku samaysanay tidhi marka waxaan ka wadaa hadduu bini aadankan hadafku uu ka lumo ilaahay wuxuu yidhi waman acrada can dikrii fa ina lahu maciishatan danka wanaxshuruhu yowma alqiyaamati acmaa ilaahay baa yidhi qofka hadduu ilaahay daacaddiisa ka jeestu dhabarka u jeediyo ilaahay garan waayo nolosha adduunyada intuu ku nool yahay qofkaasi waxa uu ku jirayaa markaa cidhiidhi ka bixi maayo weligii khidar iyo muusa calayhi salaam markay tuulada ay soo mareen tuulada ee martiqaadka ay weydiisteen ee martiqaadka loo diiday khidar calayhi salaam wuxuu bilaabay derbi dunsanaayo magaalada dhinaceeda ku yaallay buu dhisay nebi muuse su-aashaasu weydiiyuu ku yidhi low ittakhadta calayhi ajraa iyo kuwa martiqaadkii bay noo diideene dayrkan aad bilaasha ugu dhistay maad mushqaayad kaga qaadatidaa buu yidhi haddaba markaasuu yidhi haadaa firaaqu baynii wa baynik سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته من أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا دربنا دسي waxaan u dhisay ma kuu sheegaa haa hoostiisa waxaa ku jirtay khasnad dahaba ku jirtay ciyaal yaroo agoommo ah oo magaalada jooga ayaa dhaxal waxaan iyaka ayaa looga dhinto waa calaamad weeyaan marka calaamadii hadday ka baaba'do heli maayaan marka rabbigaaba igu amray anigoo rabbigaabaa doonay inay iyakoo qaan gaadhay ma dhow toole oo calaamadii intay soo eegtaan ay la soo baxaan maaragtaa inay khasnadii dahabka ahayd waxaana sidaa u yeelayna waa maxay buu yidhi laana aabbahood baa nin wanaagsan ahaa buu yidhi aabbahoodaa la sheegayay bay mufasiriintu ku sheegeen waa awowgoogii toddobaad baa nin saalixa ahaa maadaamuu awowgoogii toddobaad uu nin wanaagsan
oo ilaahay xidhiidh fiican la u ahaa ilaa ilmihiisii toddobaad baa loo ilaalinayo wax walba loogu ilaaliyey ogii toddobaad uu nin wanaagsan oo ilaahay xidhiidh fiican la u ahaa ilaa ilmihiisii toddobaad baa loo ilaalinayo wax walba loogu ilaaliyey marka macsiyadu nolosha barakada ka qaadaa halka taacaduna nolosheena ay baraka soo gelinayso